Somaliland waxa ay samaysay jiritaan dhab ah oo aanay ciidana dafiri karin 35 sanadood oo ay ku safraysay jid qodax badan iyadoo ku guuleysatay 4 arrimood oo aanay Soomaaliya haysanin balse ay jeclaan lahayd inay hesho hayaanka 35 sanadood qaatay oo bartilmaameedkiisa ku hoobanaya iyo shacab hanti iyo nafba u huraya in calanka tawxiidkali uu geeska Afrika ka noqdo mid aanay ciidana dejin karin waxa ay ka mid yihiin awoodaha isku tashigu uu leeyahay iyo mid lagaga aarsan karo cadawgaaga oo ka eegaya cagihiisa hoostooda warbixinteena waxa aynu ku falaqeynaynaa 4 arrimood oo ay Soomaaliya ku guuleysan weyday 65 sanadood balse Somaliland ay ku heshay 35 sanadood oo kaliya gobolada midoobay 1960kii ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa noqday kuwa isku dulmiyay dawladnimadii Hargeysa looga dabaldigay xornimadeeda waxana sidkii iyo labadii saamiba isku qaatay goboladii uu Talyaanigu gumaysanayay iyadoo goboladii kalena ay ku cunaqabatayeen awoodii dawladnimada ay lahaayeen kani waxa uu ahaa waayaha ay Soomaalidu ka dhirigsan tahay ee kala fogeeyay midnimadii lagu naaloonayay mar ee ahayd shanta Soomaaliyeed in la isu keeno oo ay geeska Afrika ka noqdaan walaalo istaageersada oo isku tirsan balse riyadaasi waxa soo gabagabeeyay sad bursigii iyo xaqiraadii ay ku sameeyeen goboladii Talyaanigu gumaysan jiray kuwii Ingiriisku gumaysanayay ee xorriyadda qaatay halgan badan oo naf iyo maalba loo soo huray kadib Somaliland waxa ay ku guuleysatay 1991kii inay 18 May ku dhawaaqdo inay dib u soo noqotay xorriyadeedii oo tahay wadan madax bannaan inkastoo aanay dawladnimadii iyo aqoonsigii soo qaadan oo ay martay waddo rafaad badan 35 sanadood ee ugu dambeysay waxa ay ku guuleysatay 4 arrimood oo maanta aanay Soomaaliya haysan koobaadna waa inay leedahay maalin qaran oo la isla yaqaano iyo maalmo kale oo lagu weyneeyo xorriyadda iyo jiritaanka jamhuuriyadda Somaliland 18 May oo ku aastaysan dhawqii magaalada Burco ee ay shacabka reer Somaliland isugu tashadeen iyadoo raali lagu kala yahayna la qaatay ra'yi laga midaysan yahay oo lagu raadgoobayo jamhuuriyaddii Soomaalida ugu horeysay ee xorowda taasi oo si aan ka fiirsi lahayn ugu dhexmilantay goboladii Talyaanigu uu gumaysan jiray 26 Juun ayaa maalinta xorriyadda ee Somaliland iyada oo laga xuso Hargeysa iyo Muqdisho haddaba maxay tahay sababta Hargeysa iyo Muqdisho looga xusaa ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay ficiladaasi sida ay sheegeen xeeldheerayaasha u dhuun daloola taariikhda iyo dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida ayaa ah inay Muqdisho ku haysato Hargeysa maalinteedii xorriyadda oo ahayd maalintii ugu horeysay ee wadan Soomaaliyeed uu xoroobay taasi waxa ay muujinaysaa in ay lahayn Muqdisho maalin qaran oo ay xorriyadda qaadatay bisha July 1 ayay u dabaaldegtaa markii ay Hargeysa iyo Muqdisho isku biireen balse ma aha maalin xorriyadeed iyo maalin qaran oo ay Soomaaliya leedahay marka taariikhda loo gundadego si qoto dheerna loo baadhana waxa ay noqonaysaa Muqdisho mid aan lahayn maalin xorriyadeed oo ay u dabaaldegto lambar 2 laga soo bilaabo markii ay burburtay midnimadii Soomaalidu ee ay Somaliland xorriyadeeda la soo noqotay ma jiraan Soomaali is aamintay ama se isku duubni muujisay iyadoo taasi faramaran ka taagan Soomaaliya waxana ay u kala jabtay maamul goboleedyo iyagii isa sii diidan tanina waa mid kale oo ay Somaliland ku guuleysatay muddada 35 sanadood inay goboladeedii wali is haystaan dadkeeduna yihiin kuwa isku duuban ilaa iyo haatan ra'yi midaysan ku raadgoobaya sidii ay u gaari lahaayeen rajadooda Number 3 Soomaaliya ma laha ciidan midaysan muddada 35 sanadood ah ee burburkii ka dambeysay balse Somaliland waxa ay ku guuleysatay inay samayso ciidan midaysan oo ilaaliya xuduudaha Somaliland xuduudle iyadoo ay socoto kobcin xooggan oo lagu samaynayo ciidamada militariga ah ee Somaliland balse dhinaca Soomaaliya oo aanay dimuqraadiyad ka jirin welina dadka awood gacantooda ku soo noqon ayaa marba ninka kursiga jooga uu adeegsadaa ciidanka iyo nidaamka dawladnimada ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho tanana waa mid kale oo ay Somaliland ku guuleysatay iyadoo ciidamada militariga ah ay siyaasadda mamnuuc ka yihiin si kasta oo loolanku u adag yahayna aan la arkin taariikhda iyaga oo soo dhex galay lambar 4 Somaliland muddada 35 sanadood waxa ay xaqiijisay in shacabku ay awoodda ugu sarreysa leeyihiin oo iyagu go'aamiyaan madaxweynaha hogaaminaya balse Soomaaliya taasi ma haysato teendo hoosteed ayaa lagu soo doortaa iyadoo dadan 300 gaarayni ay u codeeyaan madaxweynaha taasina waxay muujinaysaa inaanu haysanin kalsooni buuxda madaxweyne kasta oo Soomaaliya ka arriminayay muddada 35 sanadood
hogaamiyaha madaxweynaha u noqonaya Somaliland ee majaraha u qabanaya ayaa waxa uu ka duulayaa hadafka ay shacabkiisu leeyihiin iyo go'aanka ay gaadheen 1991 oo biyo kama dhibcaan ah halka uu ka duulayo hogaamiyaha Soomaaliya sidii uu hanti badan u samaysan lahaa mar kalena ugu soo noqon lahaa kursiga inkastoo aan hal warbixin lagu soo koobi karin farqiga u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland dhaqan ahaan iyo dawlad ahaan balse tusaalayaasha nool ayay afartani ka mid yihiin ee qof waliba uu ka marxaati kacayo